hase yeeshee taas macnaheedu ma aha dhammaadkii noloshaada, laakiin waa dhammaadkii xiriirkii noloshaada ay la lahaayeen. Qofna looma joojiyo adduunyadaada, dantaada ka raaco. Hana isweydiin sababtay noloshaada uga baxeen, danahaaguna ha ku mashquuliyeen. Naftaadana kor u qaad, maalmahaagana farxad ku noolow. شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal, Ramadaan mubaarak. waa mar kaliya muuqaalka loo xiiso leh. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, balse intaynaa muuqaalka gudagelin, muuqaalka leg saar. sidoo kale haddii ay tahay markii kuugu horeysay eedna soo booqato, subscribe channelka oo ka mid noqo saaxiibadan halkan ku saaxiibnay. haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina sheer gare. sideedaba noloshu waxay dhadhan ku yeelataa markaad xasuusatid waqtiga hadda la joogo inna dib kuu soo mari doonin. waxa ugu fiican waqtigii xaaladu kugu adag yihiin inaad baratid qof walba midabkiisa saxda uu leeyahay. qof walba ehelnimada uu sheeganaya inay dhab ka tahay, midka saaxiibka kula ah inay dhab ka tahay inuu afka ka sheeganayo. waxaad ogaataa qof walba qalbigiisa booskaad ka joogto. dadka qaar baa noloshaada ka agdhow, mar walba kula jooga xaaladaha barwaaqada, laakiin markay duruufuhu ku rifaan aan ku aqoonin uu kaa fogaanaya. waxaa dhacda dabaylaha qaar inay yimaadaan inay wadooyinka kuu xaaqaan. waxaaba dhici karta waxyaabahan iyo mushkiladan iyo caqabadahan ku haysta eed nolosha kala kulantay ay kuu haystaan inay tahay in dad badan oo noloshaada culays ku haya in lagaa xaaqo oo lagaa nadiifiyo. xaqiiqada noloshu waxay tahay markaanad adigu naftaada qiimaheeda aqoonin, markaanad adigu naftaada ixtiraamin oonad xushmaynin, markaad adigu aanad aqoonin qadarka qofnimaad leedahay. waxaa mar walba kusoo jiida dadka aan qiimahaaga garanayn. markaad aragtid in lagu liidayo, qadarkii qofnaad mudnayd lagu siinayn, booskaad u qalantay qofkaad ka filaysay uuna ku siinayn, waxaad ogaan doontaa helina doontaa inayba sabab ahayd naftaadu arrintan oo dhan. waayo adaa naftaada qiimayn, adaa naftaada qiimaheeda arkin, waayo adaa naftaada ixtiraami waayey. naftaadu waxay adiga kaa weyday ayaad qof kale ka raadinaysaa. noloshu waa iskuul, kamana daasho inay basharka wax barto. maalin baa qof noloshaada soo gala ku dareensiiya qiimaha sareed leedahay. waxaadna ogaan doontaa in cid kale sababto qalbigaagu uu xasili waayay ahayd calafkaaga oo laabnaa. dadka qaar way kaa tegayaan, noloshana way kugu cidlaynayaan, wehelkay kuu ahaayeen cidla ayay kuugu bedelayaan. hase yeeshee taas macnaheedu ma aha dhammaadkii noloshaada, laakiin waa dhammaadkii xiriirkii noloshaada ay la lahaayeen. qofna looma joojiyo adduunyadaada, dantaada ka raaco. hana isweydiin sababtay noloshaada uga baxeen, danahaaguna ha ku mashquuliyeen. naftaadana kor u qaad, maalmahaagana farxad ku noolow. daawade waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay dhammaadka muuqaalka leg saar. sidoo kale subscribe channelka haddaad nagu cusubtahay. haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina sheer gare. wassalaamu calaykum.